ganacsatada ka cabanaysa Maxamed Cali Ibrahim Maxamed Cajiib oo wakiil uga ahaa shirkadda Himilo ayaa shir jiraayad oo ay Muqdisho ku qabteen faahfaahin kaga bixiyay qaabkii heshiiska iyo faa'iido wadaagga u galeen kadibna ay wax jawaab laga helin ganacsatada iyo beesha ay ka soo jeedaan ayaa Xuseen qaab beelad uga wada hadleen balse shirar badan ay yeesheen lagu kala dareeray aqyaarteen ay wax ka qaban waayeen sida ay hadalka u dhigeen dhaqaalaha uga maqan Maxamed Ibrahim Maxamed Cajiib ayaa ku sheegay inay dhan tahay in ka badan 2 milyan oo dollar oo ay sheegeen in akoonkiisa ay ku shubeen guddoonka doorashooyinka iyo madaxda maamulka Galmudug ay ugu baaqeen in aysan araajida musharaxnimada ka qaban maadaama ay maxkamadda dacwada ka taalo waxaana hadaladoodii kamid ahay sidaani waxaan meeshaan aan isugu nimid maantay oo odayaasha iyo idaacadaha iyo intaba aan dalbay waxa weeye rag oo shirkada yiraahdo Himilo oo baalkii sheeg ganacsiga oo la shaqeysa baalkii sheeg airportka ka shaqeysa ayaa waxaan cabasho ka nahay nin dhacay magaciisa la yiraahdo Maxamed Cajiib oo baalkii sheeg maanta kamid ah xildhibaanada dadka raadinaya oo Galmudug ka doonaya inay xildhibaan ka noqdaan isagoo qaatay hantideedii ku doonaya musharaxnimo oo maalkaygii haya lacag 2 milyan iyo 49,670 kuna naga haya nagana dhacay oo si maafiyanimo oo sharciga islaamka aan waafaqsanayn ku dhacay shirkadaas oo aan ku heshiinay isaguna uu lahaa shakiga wax lagu keenay annaguna aan lahayn maalgelintii iyadoo maalgelinteeda ay ku jirto oo lacagteedii uu ku shaqeynayo ayuu shirkadii annagu aan kula heshiinay oo maalgelinteeda ay ku jirtay ayuu wuxuu isla iyadii la galay heshiis kale niman Etoobiyana oo annagana uu noogu sheegay nimankaas ganacsiga inay nala wadaan oo ay ku leeyihiin baalkii ishee percenti annagana ayagiina uu la galay heshiis kale oo midku annaga nala galay isla heshiiskii laftigiisii heshiiskaas oo kala ahaa inaan kala leenahay 50-50 oo nin walba uu lahaa ninkaas waxaan ka codsanaynaa dawladda Soomaaliya midda Galmudug madaxweyne Qoorqoor dhammaan xildhibaanada guddiga doorashada wax walba oo arintaas ay qusayso tangaadiidka kuwan irka dhulka intaba maxkamadda dhammaan waxaa ka codsanaynaa in ninkaas oo wax walba aan suubinay oo istaka aan suubinay oo odayaashoodii iyo dadkoodii aan ku daynay sulx sida warqadaba noogu qoran heshiiskaas in marka hore markii haddii la isku khilaafo in sulx lagu baalkii ishee lagu bilaabayo kabacdi markii sulxaas wax ka qabanayaan sharciyada islaamka loo bandhigayo markaas kabacdi maxkamad la tagayo waxaan bilownay sulx odayaashiisii in la yiraahdo shido iyo rag lamida aan uga yeernay lala hadlay nabalamiyeen waqti noo qabteen dabadeedna dib dambe ay soo noogu soo noqon intaas oo fadhi oo loogu yeerana wax jawaab aan laga helin maalin walbana ama maxkamada ahaato ama odayaalaha ahaatee markii aan la isku yimaado oo la yiraahdo war xaqaygii meel ku sheeg uu meel kale u duulahayo ninkaas oo hantideedii qaatay na dhacay si maafiyanimo nooga qaatay akoonkiisii ku xayiran tahay lacagteedii 2 milyan iyo 49,000 waxaan codsanaynaa ummadda Soomaaliyeed hadday cuqaal leedahay iyo hadday culamo leedahay iyo hadday dawlad leedahay iyo mid federaal iyo mid Galmudug iyo guddi doorasho ninkaas xuquuqdeedii way wax doorashada ku galahayo inaan doorashadiisa la aqbalin maxkamadda baa u furan waa u diyaarsan tahay galbaa nooga furan inuu meeshaas uu nala soo fariisto wax ayagiina nala kaga qaado maanta waxaan noo yimid niman ganacsada in muddaana way soo socota arrintaas oo dad badan baa ku jiray nimankaasoo lacag business ninka la Maxamed Cajiib ninka la yiraahdo Maxamed Cajiib Maxamed Ibrahim Cali Maxamed Cajiib dad business ay wada ahaayeen oo shirkad ahaayeen oo hanti isku darsadeen oo 50 ay kala lahaayeen hanti gaaraysa 2 milyan iyo 400,000 hantidaas oo gadaal marsaday Maxamed shariicada islaamka sharciga binaalaha dawladda federaalka heer gobol iyo heer
intaba waa laga dacweeyey wuuna golo imaan waayey odayaashiisii markii lagu astakeeyena isagiibayba hore u raaceen oo sharci u raadiyeen micnaheedu maahan inaan kursiga wacayslo absiga kuma haysanno laakiin hantideennii baan ku haysanaa saxna maahan soomaalida xuquuqdeeda inta garbaha la saarto idaacadaha iyo hantida ay iyagu ay leeyihiin nooma bannaana iso wax ayaga bannaysan dad soomaalikaba isma dheera maxamed cajiib iyo odayaashiisa dhuusamaree fadhiya iyo xamar fadhiya hantidiina sida kaamaradiiyo dhaweysaan ugu jeednaa waa isku jeednaa waxna nooma kala qorto waxbaan wada leenahay 2 milyan inta meel marsataan in ka aqbali mayno waxa soomaali baan nahay xoolihiinu wax xaq dhowrana ku ayaga xaq dhowra xoolaha ayaga xaq dhowra haddaan nin ku galayn jid cad iyo meel cad nagu reeba haddiina nagu reeba wax ayaga aabanaysataan soomaali baan nahay walaal baan nahay maanta isagaan nahay saa dambe waxa si kale loo gudbin doonaa oo soomaali wax xisaabtami doontaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan rabaa marka maanta halkan waxaan u fadhinaa waxaa naloo soo gudbiyey odayaasha meesha ila joogay anigaba dacwaddaasoo ku saabsan shirkad la wada lahaa oo heshiis dukumiitiya oo sida lagu yaqiinay xeerarka soomaaliyeed soo maray nootaayo soo maray la wada qoray la wada saxiixay shaqo bilowday shirkadaas la yidhaahdo himilo ayaa ninkii madaxa u ahaa wuxuu keenay musuq maasuq wuxuu keenay isdabamarsiin wuxuu keenay ku xadgudub iyo ku tagrifalid hantidii ka wada dhaxaysay dadka dadkaas ehelka ah marka waxaan rabnaa ninkaa isagaa magaciisa waxaa la yidhahdaa maxamed ibraahim cali maxamed cajiib baa wuu ku magac dheeriyay waa nin soomaaliya waa nin gaar ahaan ka soo jeeda maamulada galmudug ka soo jeeda ragga dacwinayaana waa sidoo kale waxaan rabnaa koow waxaa ka taalla dacwad baa ka taalla waxay ka taallaa dowladda federaalka oo dowladdii dhexe ah waxay ka taallaa maxkamadaha maamulka galmudug waxay ka taallaa maamulka laftiisa waxay ka taallaa oo hadda loo gudbiyey guddiga doorashooyinka oo hadda asagu uu u diyaarsan yahay inuu rabo inuu doorashadaa ka qayb galo sidii marka qodobadii hore ku xusnaa qodobka doorashada waxaa ka mid a qofku inuusan wax dacwadana aysan daba taagnayn dembi la-aanna uu yahay oo dembi uu faraha kula jiray hadda ka hor ama lagu soo eedeeyey aysan jirin oo si ay dhiba uu soo maro marka ninkaa asaga horta annagu ma haysano kursiga waxaan ka rabnaa qabiiladii asaga uu ka soo jeeday waxaan ka rabnaa hantidaasu marka maantay sidii ummadda soomaaliyeed lagu yaqiinay ama bahdaa lagu yaqiinay ama dadka odayaasha marka loo soo gudbiyo lagu yaqiinay maanta waxay maraysaa dacwad bay maraysaa waxaan leenaha dacwaddaas ayadaa ayaan ka war sugaynaa waa dacweynay waa noo dacweysan yahay ninkaa xoolahaasaa lagu leeyahay hantidiibuu ku tagrifalay shirkadiibuu si aan waafaqsanayn sharcigii dukumentigaas hadda gacanta aan ku haya ku qornaa ayuu u isticmaalay waxaa kaloo intaa dheer ninka intaasoo dacwada ay daba taallo wuxuu u diyaar yahay hadda inuu doorasho galo waxaa leenaha doorasho ma geli kartid waxaa leenaha adigoo hantidaa iska bixin oo aan xisaabta lagugu leeyahay 2 milyan iyo 409 lacaga adoo soo wareejin ma geli kartid waayo qodobkuna sharcigaa u dhigan doorashaduna waa kuu diidahaya lacagtaan lagugu leeyahay oo kabanigu uu kugu leeyahayna waa kuu diidahaya waxaan marka la wadaagahayaa bahda asaguu ka dhashay anagu kursiga duulaan kuma ahin hanti baa naga maqan waxaan rabnaa hantideedii maxamed ibraahim cali maxamed cajiib dadka ehelka u ah odayaasha dhaqanka raggii hadda ka hor inta loo tegay dhowr jeer soo gogol galay gogashaan waa gogashii ugu dambeysay oo astakada ahayd odayaashii usoo gudbay waxaan ka rabnaa hantidaa naga maqan waxaan ka rabnaa sidii ummadda soomaaliya ay ku kala bixi jirtay inaan ku kala baxno intaa haddii la waayo dacwadda ama federaalka naga taalla ama maamulka naga taalla ayaa iyadana waxaan ka sugaynaa cadaalad iyo sida aan ku kala bixinayo haddii waxaan u malaynayaa wixii intaa dhaafsanna waxay la tahay iyadana waa waktigeeda iyo maalinteeda laakiin maanta maalin cabasho dacwad aan gudbinayno ninkaan ka gudbinayna waa noo weya maantay sidaasaa marka waxaan rabnaa haddaan odayaashii nahay beesha
meesha fadhisa warkayagaas qofkii maqlo oo maxamed ibraahim cali maxamed cajiib ku hayba ama ku baha inaysan u arkin rag dulmi ku weeraraya ama kursigiisa hortaagan ay ogaadaan ninkaasu sharcigii ama kabanigii ama wixii lagu heshiiyey inuu asaga geestiisa ka jabay isagoo geestii kale ay taagan tahay hantida intaan la ego aan sheegaynaana ay ku maqan tahay sidaasaa marka waxaan rabnaa inay u dheg taagaan ciddii maqashaana ay soo dhaweyso maanta waxaan halkaan u fadhinaa cabasho naga soo gaartay rag ganacsataa cabashadaas oo ka timid kabeni dukumiintiyaashiisii halkaan ay ku qoran yihiin aynu ku heshiiyeen ganacsatada maanta nala joogta oo ah rag ganacsataa oo xigtadeenna iyo nin kale oo odaya oo asaguna maaragtay ganacsado soomaaliyeed ahaa maxamed ibraahim cali la yidhaahdo sidaa aad warkoodaba ku maqasheen ganacsatadaas waxay ka cabanayaan heshiiskii halkaan ku qornaa ay wada galeen in dhankooda ay oofiyeen laakiin uu ka burburay dhanka maxamed cali sidoo kaleeto in maaragtay hantidii ka dhexaysay maxamed cali uu qaatay maxamed ibraahim cali uu qaatay si sharci darraa ku qaatay waxaan rabaa marka xeerarka doorashooyinka waxaa ku jiray waa filayaa in qofku marka uu rabo inuu isku soo musharaxnimo awalan uu CID da warqad ka soo qaadanaya dembi la-aan waxaa cad ninkaan ummad soomaaliyeed oo dhac uu ku eedeynaysa daba joogta annaguna hadda aan gacanta ku hayno warqadihii heshiisyadooda caddaynayay sidaa awgeed waxaan ugu baaqaynaa sidoo kaleeto ninkaa arrinkiisa waxay soo martay goobo kala duwan sida ay ganacsataduba caddeeyeen waxaa u fadhiistay labadii jambi ay qusaysay arrinkan odayaashoodii mar walbana waxay wax ka socon weynayeen asaga iyo jambigiisa waxaan marka rabnaa ummadda soomaaliyeed meel kastoo ay joogtaba waa shirkado badan baa ka dhexeeya waa la isdhex yaallaa hantidii waa iskugu darsan tahay waxa ayna ku wada nool yihiin oo lagu wada socdaa waa ammaanada iyo ixtiraamka haddii la waayo waxaa imaanaya in maaragtay wax badan oo hantidii ummadda ku salaysan ay sidaan oo kaleeto ku dhumaan cidda la rabo inay marka ilaaliso oo kala badbaadiso oo dadka hantidooda dhowrto waa maamulada ama ha noqdo maamulka gobolka waan wada dareemayna labada dhinacba inay galmudug kasoo wada jeedaan ama ha noqdo maamulka federaalka sidaa awgeed waxaan awalan rabnaa in ninkaas iyo raggan inta arrinkooda dhan loo ridayo guddiga doorashada galmudug ninkaas eedaysanaha in aynan qaban